kulan warbaahineed ay si wada jir u qabteen wasiirka amniga Puntland taliyaasha ciidamada booliiska asluubta badda iyo gudoomiyaha gobolka Nugaal ayay kaga hadleen sugidda amniga caasimadda maalinka 1 Agoosto waa kan Muxyidiin Axmed Aw Muuse taliyaha ciidamada booliiska Puntland oo ka hadlaya awaamirta laamaha amnigu ay maanta gaareen shirkan waxaan ugu talagalay inaan waxyaabo badan oo wacyigelin iyo amaro isugu jira oo ku saabsan 1 August inaan ugu sheegno dadweynaha marka koowaad dadweynaha waxaan ka codsanaynaa in ay la shaqeeyaan ciidamada amniga inay u hoggaansamaan awaamirta iyo meelaha iyo waxyaabaha loo diido oo meelaha baabuurta la dhigan karin oo ay ka mid tahay barxadda ilaa buundada inta u dhaxaysa baabuur lama dhigan karo laga bilaabo 31 bish lama dhigan karo baabuur waxa weeye inay waxa la wixii amniga laga wada shaqeeyo dadweynuhu qaybtooda ka qaataan xaafaduhu qaybtooda ka qaataan ciidamada amniga la shaqeeyaan cid kasta oo ay u arkaan inay amni xumo ama wax sameynayso ama ay ka shakiyaan inay la wadaagaan xogta ciidamada waxa xiran wadada marka laga reebo gaadiidka xoolaha sida 31 bisha 5 galabnimo way xiran yihiin wadooyin ilaa laga maro 10 iyo barka 11 barqanimo 1 bisha wadada waa xiranta gaadiidka cid waliba meesha ay joogto waqtiga ayay ku sugnaanaysa ma jiro isu socod marka laga reebo xoolaha oo iyaga meelo gaar ah la marin doono maahane way xiran yihiin gaadiidku sidaas uu xiran yahay waxaan codsanaynaa in loo hoggaansamo wasiirka amniga Puntland ayaa shacabka Puntland ugu baaqay inay ciidamada kala shaqeeyaan adkeynta amniga Puntland shir dheer oo ay laamaha amniga dhamaantood isugu yimaadeen waxaa la isla qaatay in la adkeeyo amniga guud ee Puntland gaar ahaan inta ay socdaan arrinta dabaaldega maalinta barakeysan ee 1 August in la adkeeyo dhammaan magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ahna meesha ugu weyn ee uu dabaaldegu ka dhici doono iyadoo goobo kale iyo gobollo kale iyo magaalooyin kale iyana ay ka dhici doonaan laakiin meesha ugu weyn ay noqon doonto xarunta caasimadda dowladda Puntland ee magaalada Garowe muhiimadda ugu weyn waxa weeye in amniga la adkeeyo oo shacab iyo xukuumadba meel looga soo wada jeedsado cadowgu waa badan yahay mid muuqda iyo mid qarsoon inaan fursad la siin cadowga ummadani reer Puntland waxa ay caan ku ahaayeen oo taariikh u lahaayeen nabadgelyo iyo amni iyo horumar waxay caan ku ahaayeen oo taariikh u lahaayeen inay nabadgelyadooda iyo amnigooda ka shaqeeyaan oo ay wax walba ka horumariyaan tiiba maanta looga fadhiyaa tii aad ka shaqeynayseen oo aad adkeysaan oo aad laba jibaartaan baa laydinka fadhiyaa guud ahaan reer Puntland gaar ahaan magaalada caasimadda Garowe shacabweynaha iyo bulshada ku dhaqan waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay idmo maalinta 1 August ee fooda inagu soo haysa inay si nabadgelyo leh oo wanaagsan ay u dhici doonto hadduu Ilaahay idmo Cabdiraxmaan Xasan Xayir dalka TV Garowe